Madaxweyne ku-xigeenka Jamhuuriyadda Somaliland Cabdiraxmaan Cabdullaahi Ismaaciil Saylici iyo wafdi ballaaran oo hogaaminayo ayaa maanta si mug iyo miisaan loogu soo dhaweeyay magaalada Balligubadle ee xarunta Gobolka Hawd. Wafdigan ayaa markii ay soo gaareen magaalada Balligubadle waxa ay ka qayb galeen munaasabad ballaaran oo loo qabtay maalinta saddexaad ee ololaha xisbiga talada dalka haya ee kulmiye. Xafladan oo ahayd mid si ballaaran loo soo agaasimay ayaa waxa hadalla mahadnaqa ka jeediyay xubno ay ka mid ahaayeen gudoomiyaha Gobolka Hawd ee xisbiga kulmiye Cabdiraxiin Cabdullaahi iyo xogayaha guud ee xisbiga kulmiye Xasan Siciid Yuusuf iyo xildhibaan Salebaan Daahir Cabdullaahi Dogo iyo xogayihii hore ee dawladda hoose ee magaalada Hargeysa Axmed Maxamed Cabdullaahi Axmed Darajo iyo wasiir ku-xigeenkii hore ee wasaaradda warfaafinta iyo wacyigelinta Somaliland Marwo Shukri Xariir Ismaaciil. aan ku dardaaray reer Balligubadle maalinta codbixinta inaan laydinka badan safka uguna horeysiin. والسلام عليكم. halka kii lagu jiray aragtidii qaranka Somaliland lagu dhisay shacbiga Somaliland ayaa lahaa reer Balligubadle waxa ka mid ahaayeen hormood u ahaayeen halkankaas shacbi ee lagu qotobiyay qaranka Somaliland dhismaha qaranka Somaliland waxa qayb weyn ka tihiin dhismihii qaranka. anigu Balligubadle waxba sii faanin maayo uma baahna in halkan laga sheego la faaniyo maalintii horaan ka hadloonay waa hooyadii halkanka hooyadii hangalka seen u cadeynayna waynu garanaynayo codkeenaynu ku cadeynayna inuu nahay hooyadii halkanka la isku qabsan maayo taas lagu murmi maayo soo dhameeyay kulmiye mnihin soo codka kulmiye siimayno soo kulmiye maalinta codbixinta doorashada ku rumayno barbarkay ka baxaa bakala qaleen waxa halkankii ciidiin tilmaami mayso saada wax sheegay Balligubadle iyo deegaankan Hawd waa hooyadii halganka intaas ay idinku filan taariikhan cidina qarin kareen cidina aan masixi kareen weeyaan waa ogeydeen maalintii gobolka Hawd gobolnimadiisa lagu dhawaaqay khudbadii ugu qiimaha badnayd waxa dadka gobolka Hawd ay yihiin tusaysay waxa jeediyay musharaxa maanta xisbiga kulmiye. sidoo kale madashaasi waxa hadalla kala duwan ka jeediyay salaadeen odayaal waxgarad siyaasiyiin dhalinyaro iyo haween waxayna dhammaantood sheegeen inay taageersan yihiin xisbiga kulmiye isla markaasina ay hiil iyo hoob la garab taagan yihiin murashaxa madaxweyne ee xisbigaasi Mujaahid Muuse Biixi Cabdi. xafladaasi waxa ka hadlay mas'uuliyiin ay ka mid ahaayeen la taliyaha madaxweynaha ee arrimaha dhaqaalaha Axmed Carwo wasiir ku-xigeenka wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare Axmed Joqor iyo wasiir ku-xigeenka wasaaradda arrimaha dibadda Kaysar Cabdullaahi iyo wasiirka wasaaradda dhaqanka iyo dalxiiska Khadar Xaaji Yuusuf iyo wasiirka wasaaradda qorsheynta qaranka Somaliland Maxamed Ibrahim Aadan Qabiyad Tire iyo xubno kale. waxa weeye shacbiga Somaliland inay arkaan mustaqbalkooda cid ay ku aaminaan cid ay tahay waxa kale yiraahdeen markay boorama ka hadliyeen annagu haddii laga adkaado waddanka waanu kala jaraynaa waa dagaalamayna haddaanu kulmiyanahay haddii laga adkaado dagaalamayna waanu hibaynaynaa annagu wuxuu yidhi telefoonada technology waanu ku helnay technology-ga isagu maaha kii shirkadda Japan ka socday hadda waxa jiro kale ashabaabtu dadka way la soo hadashaa hadda ka fiirsada ashabaabtu way la soo hadashaa nambarkaaga yaa siiyay adigu aad seetay telefoon ka furatay haddii aan meesha wax kale ku jirin waxaad ka fiirsanaysaan telefoonada ay leeyihiin waanu idinka soo garaacaynaa tii xamar iyo waxa isku xidhanaya tawadani ashabaab hadday ku soo garaacday ku tiraa telefoonka codka nagu sii miyaynu siinaynaa siin mayno waxa weeye waxaan u baahannahay in nabadgelyada ilaashano midnimada ilaashano qofka idinla yimaada qabiil iyo kala fuquuq ku foodiyo aqbalna codna hasinina العلوكيكي جمهورية سوماليلاند مدن عبدالرحمن عبدالله سيليعي oo kamid ah dadkii tiirarka u taagan badan haysano dib u dhiska dalka horumarka maanta ay nigsanayno isagoo ogsoon halka uu maanta dalku joogo iyo halka uu hore uga sii dhaqaaqayo qof aan waxba ogeyn imika iska yimi waxa weeyaan runtii idinkama qalmo inaad codkeena siisaan Soomaaliland ha noolaato xisbiga kulmiye ha guulaysto waxaanu rabnaa xisbigii kulmiye ee guusha iyo horumarka inoo horseeday inaynu mar labaad aynu u codayno oo aynu soo saarno si wadada Balligubadle ay noogu dhamaato. balaajana waxa weeyaan inaan kulmiye u codayno ninka garanaya meel walba garanaya geed walba garanaya ee magaalada aan la barahayn laakiin nin magaalooyinkii orleetan magaalada la magaceed oranaya ka horta magaalooyinka horta soo barto dhowr sano si yaro joogo
ومقالوكا صوت بالمرور هاتوا لو بقرانيا أيام لنا أدينا يقانيه أذان خطورنا waxaan isleeyahay balgubadle waa lagu tilmaamaa waa ku suntantiin taariikhda kulmiye si fiican baa ku suntantiin shaki badan igagama jiro codka balgubadle waa dhowr iyo 10 kun oo cod 10kii sanadooda greenka waa 10kii barwaaqada waa 10kan balgubadle ka dhisay boarding schoolki waa 10kan balgubadle ka sameeyay baagelinti waxaan doonayaa barkad dambe biyo inaan laga cabin in baybkii aan soo gashataana biyo gelintii baanu bilaabaynaa labada gacmood baa ku meedhan doontaan insha Allah biidnillah gabagabadii munaasabadaasi waxa soo gulanaday madaxweyne ku-xigeenka Somaliland Cabdiraxmaan Cabdillaahi Ismaaciil Saylici waxaanu si kale iyo laaba ugu mahadnaqay bulshadii kala duwaneed ee ku soo dhaweysay magaalada Balligubadle ee xarunta gobolka Hawd koowaad waxa ka bilaabay maanta gobolka Balligubadle waxaan ugu doortay xisbi walba wuxuu daneeyaa gobollada inta badan looga codayo codka ugu badan ka helo markaa gobolka Hawd waa gobol kale looga codayn jiray laga soo bilaabo 2002 2005 2010 soo jeerba taariikh weyn iyo wuxuu leeyahay xisbiga kulmiye aataar buu leeyahay taasaan u doortay inaan markaan ka imid gobolka ka soo baxay ololihiisii oo maanta ay dhaafay musharaxan wada sharaxan Muuse Bixi Cabdi maanta uu boorama ka hadlayo anna waxaan doortay inaan ka bilaabo gobolka Hawd Maxamed Jiciir Axmed iyo Axmed Maxamed Cawaale warbaahinta qaranka Somaliland magaalada Balligubadle